safarkani waxa uu marag u yahay in jamhuuriyadda Soomaaliland ku socoto jidkii saxda ahaa ee xasiloonida horumarka iyo iskaashiga. waxa uu safarkani tilmaamayaa sida dalkeenu uga dhex muuqdo gobolka Geeska Afrika. safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu waxa uu ahaa mid bilow u ah guul taariikhi ah oo didibada u taagi doonta bog cusub oo xidhiidh diblomaasiyadeed iyo iskaashi istaraatiiji ah oo u dhaxayn doona labada dal ee walaalaha ah Soomaaliland iyo Itoobiya. madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay kulamo midho dhal ah iyo wada hadallo istaraatiijig ah la yeesheen madaxda ugu sarreysa dalka Itoobiya, kuwaas oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, ra'iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka difaaca, wasiirka dakhliga, taliyaha ciidanka, taliyaha booliiska, taliyaha sirdoonka iyo saraakiil kale oo sarsare oo ka tirsan dawladda Itoobiya. shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, saxaafadda sharafta leh iyo dhammaan bulshada qiimaha leh ee reer Soomaaliland ee ku nool dalka gudihiisa iyo dhammaan daafaha dunida, maanta halkan waxaan idinka akhriyayaa war saxaafadeed kooban oo ku saabsan safarkii shaqo ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu ku tagay dalka Itoobiya. safarkaas oo guul iyo safgarad ku soo dhamaaday. safarka madaxweynuhu waxa uu ahaa mid ku yimid casuumad rasmi ah oo uu ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Dr. Abiy Ahmed. marka koowaad waxaan halkan uga mahadnaqayaa dawladda Itoobiya ee aynu walaalaha nahay soo dhaweynta ballaaran ee ay u sameeyeen madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ahayd runtii mid heer sare ah oo si weyn uga tarjumaysa xiriirka qotada dheer leh oo u dhaxeeya labada dal. madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay kulamo midho dhal ah iyo wada hadallo istaraatiijig ah la yeesheen madaxda ugu sarreysa dalka Itoobiya, kuwaas oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, ra'iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka difaaca, wasiirka dakhliga, taliyaha ciidanka, taliyaha booliiska, taliyaha sirdoonka iyo saraakiil kale oo sarsare oo ka tirsan dawladda Itoobiya. kulamadan muhiimka ah waxa la isla gartay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha, ganacsiga, socdaalka, isku socodka dadka iyo badeecadaha ee kaabayaasha dhaqaalaha ee labada wadan. wada hadalladaasi waxay ahaayeen kuwo si daacadnimo iyo kalsooni ku dhisan u dhacay. waxa la isla qaatay in xidhiirka labada dal uu noqdo mid waara, waxtar leh, kuna dhisan dan wadaag iyo is-ixtiraam. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxa kulankooda ku lafagureen xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika, iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu halkaas ku ammaanay ra'iisul wasaaraha Itoobiya horumarka ballaaran ee uu dalkiisa gaarsiiyey iyo aragtida fog ee uu ka leeyahay xasiloonida nabadda iyo horumarka gobolka oo dhan. dhankiisa isna waxa uu ra'iisul wasaaruhu Soomaaliland si gaar ah ugu ammaanay dawlad wanaagga iyo horumarka nabadda ee ay gobolka u horseeday. dhanka kale, madaxda sare ee Itoobiya ayaa si kal iyo laab ah u soo dhaweeyay hogaaminta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo u muujiyay ixtiraam, kalsooni iyo taageero ballaaran. waxa ay dhammaan madaxdii uu la kulmay madaxweynuhu bogaadiyeen dadaalada uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu ku hogaamiyey qarankiisa, gaar ahaan dhanka nabadgelyada iyo horumarka. sidoo kale waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen aragtida madaxweynaha ee iskaashiga xasiloonida gobolka Geeska Afrika. ugu dambayn, safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu waxa uu ahaa mid bilow u ah guul taariikhi ah oo didibada u taagi doonta bog cusub oo xidhiidh diblomaasiyadeed iyo iskaashi istaraatiiji ah oo u dhaxayn doona labada dal ee walaalaha ah Soomaaliland iyo Itoobiya. safarkani waxa uu marag u yahay in jamhuuriyadda Soomaaliland ku socoto jidkii saxda ahaa ee xasiloonida horumarka iyo iskaashiga. waxa uu safarkani tilmaamayaa sida dalkeenu uga dhex muuqdo gobolka Geeska Afrika, dal xasiloon, madax bannaan, geesinimo leh, kuna socdo himilo iyo hogaamin xaqiiqo ah.
ilaahay ha barakeeyo jamhuuriyadda Soomaaliland ha xoojiyo nabadeeda hana waarto horumarkeedu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.